السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مeel kastoo joogtaan daafaha dunida. magacaygu waa ayaan Axmed Caydiid ayaan kaaba. waxaan soo gudbinayaa maanta maaso cusub oo la yiraahdo qalbi. maasadan waxay ka hadlaysaa jacaylka iyo bay ku taxalluqdaa oo hoos imanaysa. maasadan waxay ku bilaabaysaa sida tan. qudhuru waxay doontaan qofna la simayno. qorraxdii timaadaba qanci baad isleedahay. qorraxdii timaadaba qanci baad isleedahay. qaladkaad ka dhowrtaa aqoontaad u diidaa. qaladkaad ka dhowrtaa aqoontaad u diidaa. qalbi baad tidhaahdaa qabna waad u yeeshaa. quruxdiisa goortaad qac ku siiso dhaayaha waad kuba qabowdaa. qadir baa u dhaliyo adnagoo u qashuucdaa. isagoo la qabo oo qayrkii la siman baad fikta sare u qaadaa ood qiimo gelisaa. haddii qaayihiisana qodob u sheego qeex laygu odhan laa buuguba ma qaadeen ruuxdiisa qaniga ah. qowlkiisa wacan baa nafta qiimo geliyo. qadir waxaad ka toogtaa inaad qoys ahaataan. qaladkii dhacaayaba qarsa baad tidhaahdaa. balse qaar xasuusaha ayaa kugu qasbaayo sida ay qardhaasiin ku lamaan qalbiga oo qulubtaad ka oydaa. noloshaa qadhaadhiya ilaa qayb macaane qudha adiga oo faray go'aan qaadanaya qof wax jecelma qoostee soo qaalimaad odhan. hanti kuguma qiimayn qurux kuguma soo xulan balse waa qisiyayaab qalbiyada inagu jira ayaa qowl wadaago isku qaaday caashaqa. waxa tahay qofkaygii qorshayaasha nolosha qalin baan wadaagnaa. taladana mid qura iyo qosol baan ku geynaa. qaniyo raxmaano waxay u qadan nasiibkiyo qofka rabo inaan helo.